dhibaatada loogu geystay askartii reer West Virginia oo ka dhacday magaalada Washington DC ayaan waxaan rabnaa insha Allah tacaala warqad ka soo baxday maamulka madaxweyne Trump iyo sidaas la mid ah warqad ka soo baxday ninka xukuma hay'adda USCIS oo iyadoo ah hay'adda qaabilsan in ay process garayso application kasto oo soo mara dalka Mareykanka kaas oo ku saabsan arrimaha soo galootiga. Marka waxaa ka soo baxday warqad yar oo uu soo qoray Edlow ninka la yiraahdo, ninkaas oo isagoo ah ninka directorka ah ama xukuma directorka xukuma hay'adda USCIS. Hay'adan ayaa waxa ay sheegtay amar uga yimi maamulka sare ee madaxweyne Trump kadib shalay dhibaatadii ka dhacday Washington DC. waxa uu madaxweynaha go'aamiyey in application kasto ama arji kasto oo 19 wadan oo markii hore shaki laga qabay muwaadiniintooda eedeyna loogu soo jeedinayay in maamulkii hore ay dadkaas u ogolaadeen in ay soo galaan dalka Mareykanka baa maamulkii Biden ee 4 sano la soo dhaafay waa anaga inta dhaweyta video ka sameynay. So 19 kaas wadan dadka ka soo galay ayaa waxa uu madaxweynaha amar ku siiyay hay'adda USCIS in ay baaritaan degdeg ah ay ku samayso 19 ka wadanna haddii aan idin kala sheego waxa ay kala yihiin Soomaaliya ka bilaabeyna maadaama anaga Soomaaliya aan nahay of course Soomaaliya, Yemen, Eritrea, Burundi, Congo waa Republic of Congo, Equatorial Guinea, Togo, Chad, Libya, Sudan, Haiti, Cuba, Venezuela, Sierra Leone of course, Afghanistan, Turkmenistan, Myanmar iyo Laos. So 19 kaas wadan muwaadiniinta 19 kaas wadan ka soo jeeda oo sharci qaadatay ama green card ha ahaado ama I-94 ha ahaado ama qof hadda wax sugaayo oo aan labada midna haynin oo sharci suga ah waxa ahaade mainly waxa xoog la saari doona hadii Ilaahay idmo waxa uu noqon doonaa madaxweynaha yiri oo amar lagu siiyay hay'adda USCIS in ay shaqo adag ka qabato 19 kaas wadan oo markii horeba ay saarnayd cunaqabataynta. mar la weydiiyay su'aashan ninkaas Edlow oo la dhahay maxaad yaa waayo wadamada shakiga ama dareenka uu ka qabo dalkan Mareykanka. So isaga madaxweynaha wuxuu isticmaalay countries of concern wadamada aan ka qabno walwalka markii horeba yaa waayo markii la dhahay 19 kaas wadan oo hadda aan idin sheegay ayuu wuxuu dhahay Mr. Edlow waxa dib u fiirisaan bishii June sanadkii la soo dhaafay travel banki la soo rogay wadamadii loo diiday dalka Mareykanka inay si fudud ku soo galaan liiskaas fiiriya. Marka liiskii markaan fiiriyay waxa ii soo baxday 19 kaas wadan. Of course anaga Soomaaliya nahay, Soomaaliya kamid waa kamid dalka Soomaaliya waa kamid, Yemen waa kamid, waa Eritrea waa kamid, Sudan, Chad, Libya, Togo of course. Africa haddaan idin sheego Sierra Leone, Equatorial Guinea iyo Republic of Congo. intaasoo wadan baa Africa kaga jirta. Eritrea, Yemen, not Yemen actually, Eritrea, Somalia, Burundi, Congo, Equatorial Guinea, Sierra Leone, Chad iyo Libya waaye iyo Sudan of course. Marka wadamadaas ayaa waxa madaxweynaha uu amar ku siiyay in dib u eegis lagu sameeyo application kasto gaar ahaan hataa wuxuu ka hadlayaa dadka qaatay green cardka. nimankii reer Afghanistan iyagu shalay ninka dhibaatada geystay awgiis waxa dhacday in iyaga totally la joojiyo wax application ah oo wadankaas ka socda oo la qaabilayo haba yaraatay ma jirto. maantana waxa la raaciyay in warqadaas kale ay soo baxday oo 19 ka wadan oo markii horeba buuq kaga furaa xagga travel banka oo dalkan loo diidanayo laga joojiyay in lagu soo daray liiska. marka 19 ka wadan fiiriya ayuu yiri ninkaas odayga ah markii la weydiiyay dadka kamidka ah wadamadaas dib ha loo eego buu yiri wadamadii hore aan u mamnuucnay baan dib u eegi doonaa applicationadooda. So qof kasta oo wadamada ka soo jeeda oo qaatay green card maanta wuxuu ku jiraa bahar aadaa le aada
dib ayaa loo eegi doonaa. Markii hore waxay ahayd dad gaar ah in dib loo yarafiyeeyo applicationadooda maadaama madaxweynaha uu ku eedeynayay maamulkii hore in uu si degdegsiye ah wax u sameeyey. tan kale markii la wareysanayay Mr. Edlow oo isagoo ah directorka USCIS ayaa waxa uu sheegay dalka Mareykanka uma rabna buu yiri in aan mas'uul ka noqono shaqo xumadii iyo dadkii iska soo xaroonayay iyo nidaam darradii maamulkii naga horreeyay ama resettlement programkii uu sameeyay. ninkan hadda odayga ah oo dhibaatada geystay oo askarta xabadeeyay ayaa waxa ay sheegeen in sanadkii hore la siiyey sharciga oo sharci isaga asylumkiisii oo magangelidoonkiisii la ansixiyaba oo loo ogolaaday dalka inuu joogo oo ka shaqaysto oo I-94kiisii wixiisa waaba la siiyaba. ninkan odaga ah ayaa waxa uu ku imaaday baa la yidhi program madaxweynihii hore ee Biden uu u bixiyey maadaama markii ay ka soo baxayeen Afghanistan uu u bixiyey welcome our friends oo kale program ah saaxiibadeen waa soo dhaweynaynaa dadka allies kana la ah oo taageerada noo haya oo aan la shaqeynayna waan soo dhaweynaynaa buu yiri. so 19kaas wadan ayaa hadeer sida jirta la xaqiijiyay in 19ka wadan ay yihiin dadka sida goonida ah loo baari doono oo loo jeegarayn doono. ninka odaga waa la hayaa laakiin waxa uu sababay in markii horeba ula booclay iyadoo la isugu kutubayay oo policy-gii hore ay jirtay oo daraad aan ka hadlaynay ku saabsanay dadka green card-ka qaatay in qaybo ka mid ah dib u eegis lagu samayn doono bay hadda waxay yiraahdeen all of them kulligood qof kasta oo qaatay sharci oo 19ka wadan ka soo jeeda waxaa lagu samaynayaa baa la yiri baaritaan oo dib u eegis ayaa lagu samayn doonaa. sidaan hore idinku sheegay maalinkii dhaweyto ninkii lawyerka ahaa ee Soomaaliga ahaa Cabdulwaahid baa la yiraahdaa jeclahay ninka Minneapolis jooga maanta taa uu soo galiyay arrinkan isaga ah ka hadalkiisa wuxuu soo jeedinayay qofka haddii ay u yeerto hay'adda ICE Immigration and Customs Enforcement in uusan interview siinin isaga oo aan haysan lawyer. marka arrinkan isaga ah oo dhibaatada ah oo dhacay shalay ka dhacay Washington DC already waxa la dareemayaa saakay dhibaatadii uu geystay maanta already waa la dareensan yahay dad fara badan ayaa loo soo jeedaa. tan labaad oo aan rabo inaan idinku daro hadduu Ilaahay idmo waxaan daawaday waraysi laga qaaday nin oday ah oo la taliye u ah madaxweyne Donald Trump. ninkaas la taliyaha ah ayaa waxa uu sheegay isaga oo waraysi laga qaadayay podcast waraysi aad badan ay loo daawado oo waliba podcastigaas uu yahay podcast qolyahan xagga gacanta midig ee conservatives-ka ah ay xukumaan ayaa waraysigaas wuxuu ku sheegay in Minneapolis loo soo socdo isbuucyada soo socdo. wuxuu yiri maalmaha soo socda ama isbuucyada soo socdo waxaa loo soo diri doonaa buu yiri stateka Minnesota gaar ahaan magaalada Minneapolis iyo adiga meesha Soomaalida ay concentrated ku tahay u fara badan tahay in loo soo diri doono ciidamo National Guard ah ciidamo ICE ah iyo ciidamo Border Patrol ah oo kuwa kulli waa ku saabsan arrimaha immigrationka. marka wuxuu sheegay ninkaas odayga ah waxaan ku dhihi lahaa buu yiri waliba si gaar ah isagoo Soomaalida u bartilmaameedsanayo dadka Soomaalida ah ee ku nool gobolka Minnesota gaar ahaan kuwa Minneapolis ku nool in ay sii diyaariyaan. actually in general wuxuu dhahay gobolka Minnesota dadka ku nool app baa jira appkaas oo la yiraahdo CBP app baa la yiraahdaa. appkaas waxaa ku samayn kartaa haddaad rabto inaad self deportation isku samayso adiga aad istarxiisho oo iyaga appka iska tarxiili kartaa oo aad marka waxay ku leeyihiin haddii annaga aan ku soo qabanno oo aan tan maxkamad ku marino ku process garayno aan ku tarxiilno you will never have another chance dalkan Mareykanka adib ugu soo laabato chance kale ma helaysid mana lagu ogolaanayo dalkan inaad ku soo laabato. laakiin sida dadka ay ugu encourage garayaan ama ugu dhiirigeliyaan arrinkan ayaa waxa ay sheegayeen in qofka hadduu CBP1 appkaas intuu ka codsado self deportation isaga uu isku sameeyo oo isaga uu istarxiilo chance buu leeyahay uu dalkan dib ugu soo laabto. marka ninka odayga ah wuxuu ku leeyahay isdiyaariya
aabkiina soo dejista waa idin soo soconnaa adiga meel buu ka soo dhaaranayay kayskana weli wuxuu sheegay in uusan rabin in uu ka hor dhaco oo uu ku sameeyo ka hor dhicid inuu ku sameeyo ma rabo buu yidhi waxaan rabaa in haddii uu ilaahay idmo waan soo soconnaaye qofkii raba ha isa sii diyaariyo self deportation isku sameeyo isaga iskii ha isu tarxiila camal kolley cid ka helaysaa iska yarsaan u malaynayo qofki dadka laakiin way u soo socdaan sida Minneapolis uu sheegay tan kale oo iyadana jirta oo isla same podcast almost niman waxaa jira dad hadda soo baxay oo Soomaalida aad iyo aad ugu kacsan dadkaas iyaga ah waa qolyaha conservative-ka ah waxaana ay gudbinayaan narrative ama sheeko dhisan oo isku daba xirxiran oo nidaamsan oo ay ugu talagaleen Soomaalida in ay ku dhibaateeyaan dadkaas mid kamida wali si fiican buu toban noogu qaatay fuusto culus buu nagu soo riixay waxa la dhihi jiray fuustana lagu soo riixay fuusto culus ayuu nagu soo riixay kadib markii uu sheegay ninkaas in dadka reer Soomaaliya ama Soomaaliya ka soo jeeda reer Soomaaliya oranay dalkan Mareykanka ku nool ama deegaanba waa dadkaas in ay dadka kale ka aqli yar yihiin buu sheegay arano meel ka keenay hadalkaas laakiin wuxuu ku leeyahay IQ-ga qofka caadiga bini aadanka maskaxdiisa waa 120 meelahaas qof very smart waa qofkaas 110 intaas 107 waxba loo dhaxeeya Soomaalida kulaha isaga oo maaragtay raba inuu dadkeena uu aflagaadeeyo 70 way ka hooseeyaan buu ku leeyahay waa dad aad iyo aad u aqli xun oo micno badan aan lahayn marka dagaalkan wuu socdaa darad wataan ka hadalay arrinkan ninka odayga ah wuxuu kaga hadlayay television laga wareysanayay oo podcast ah haddana wuxuu ku leeyahay ma rabo inaan ka hor dhaco waxaan u soo soconnaa si gooniya oo waliba oo magac dhow ah buu u leeyahay Soomaalida Minnesota degan waa u soo soconnaa qofkan self deportation isku sameeyno isaga istarxiilina annaga intaan u imaano qabanno tarxiili doona marka fuustooyin badan baa la isku soo riixayaa Soomaalida waa lagu soo jeedaa of course waa arkayseen sidii ay uga falceliyeen dadka reer Minneapolis isu soo bixi ay sameeyeen taageerada ay ka haysteen dadka Amerikaanka ah reer Minnesota ah oo cadaanka ah dad fara badan ayaa isugu soo baxay arrinkaas markii ay ka maaragtay ay ka andacoonayeen oo ay ka hadlayeen la noqoshadii TPS programka lagala noqday dadka gaar ahaan Soomaalida busi madaxweynaha gooniya u sheegay waxaan rabaa inaan idinku daro inta aanan idinka tegin markii annaga ama dadka Soomaalida ah lagala noqday waxaa next laga dhigay dadka reer Myanmar ama Burma ka soo jeeda dadka Burma ka soo jeeda ayuu madaxweynaha daraadna kala laabtay waliba waxaa lagu eedeeyay dadka reer Burma wali inay ciidamadii militariga ahayd ay haystaan dalka oo dhibaatada ay ka wadaan dalkoodana uusan ka dhamaan rabshadihii iyo wixii iyo doorashooyinkii la isku haystay doorashada inay ku soo socoto laakiin madaxweynaha wuxuu go'aan ku gaaray in uu ayagana kala noqdo TPS programkii marka wadamada aan idin soo sheegay iyaga mar hore Cuba Haiti Venezuela kuwaas Haiti iyo Cuba iyo Venezuela horaba iyaga loogala laabtay maxaan iraahdaa TPS programka haddana Myanmar baa lagu soo daray Soomaaliya lagu soo daray wadamo badan baa lagala laabanayaa I think Sudan waa loo soo socdaa sida hadda uu sheegay madaxweynaha Iran marka hore ma aysan haysan TPS program Afghanistanna shalay ayaa wax alaala wixii application ah oo ka soo jeeda dalka Afghanistan maadaama ninkaas dhibaatada geystay oo askarta shuud gareeyay xabadeeyay uu ka soo jeeday waxaa Afghanistan laga joojiyay wax kasta oo application ah oo xaggaas ka socda laakiin fuustadaas ninka uu soo riixay dadkaas fara badan ayay saameysay oo maanta sida aan idin sheegay Cuba, Haiti, Venezuela, Sierra Leone, Equatorial Guinea, Republic of Congo, Burundi, Chad, Sudan, Libya, Eritrea, Yemen, Somalia, Afghanistan, Turkmenistan, Myanmar iyo Laos intaas oo wadan ayaa maanta waxaa la dhahay applicationadii xilligii 4 sano oo la soo dhaafay dadkii la siiyay green cardka iyo dadkii qaatay I-94ka
iyo dadkii asylumka sugayay iyo dadkii asylumka qaatayba intaa waa laga daba tegaya hataa waxaa laga daba tegayaa baa la yidhi application kasto xabad ee loo soo saarayaa dadka hataa refugiga haysta oo qaxootinimada dalkan ku imaaday dadkaas oo dhan baa laga daba tegi doonaa sida hadda uu sheegay madaxweynaha amarna lagu siiyey hay-adda USCIS amarkaasna way u hoggaansantay wayna qaadatay waa arki doonaa wixii kale oo ka soo kordha laakiin 19 waddan ayuu hadda maanta la soo cadeeyay in la rabo in muwaadiniintooda dib eegis lagu sameeyo applicationadoodii iyo howlahoodii marka waad mahadsantihiin akhyaarta igala soo qayb gashay oo daawanaysay all the way through intaan insha allahu tacaala mar kale kulmi doono waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh